waxaan rabaa inaan ka hadlo iyadana qodob ku saabsan commitment waxaa la dhahaa af Soomaali ahaan waxaa lagu dhahaa waa dadaal joogto ah ama ballanqaad ama go'aan adag inaad yeelatid ayaa commitment la sababta ereyga soo qaatan waxay tahay waxaan arkay dad fara badan oo waliba dad waaweyn ah oo bulshadeena Soomaaliyeed ka mid ah oo rabaan inay wax qabtaan ama hoos sameeyaan haddana commitment aan lahayn sababta Allah waxay tahay dad waaweyn ayaa hadda wax bara ardaydeeda ka mid ah ay ku leeyihiin waxaan rabnaa inaan barno way isdiiwaan gelinayaan hawl bay bilaawayaan way u baahan yihiin wixii inay sameeyaan baahidii way qabaan haddana commitment ma lahan oo dadaalkii baa ku yar marka hal qof ma ahan laba qof ma ahan saddex qof ma waa u fiirsaday qof wixii way bilaawayaan at the same time lama dhammaystirayo waxaas way nagu bateen qofka hadduu go'aan qaato uu rabo inuu wax qabto ama waxbarasho ha noqoto ama business ha noqoto ama wixii doonto ha noqoto waa inaadan si emotional wixii aad u sameeynin oo ay tahay wax ka soo go'aan adiga ka yimid waa inay ahaataa maalmo u sheega laakiin waxaan waxay noqotay dhaqan anaga Soomaali ahaan aan bulshadeena ku badan waxaa lagu leeyahay waxaas u baahan qofkii waa heshiinaysaan waxa meel isla dhigaysaan waxa qorsheenaysaan then muddo yar kadib qofkii waa tanaasulo ama dana kale ama meel kale ama wax kale bilaabaya soo marka hawsha markuu bilaabo waxir markuu wado ama ku adkaanaysa caqabado la kulmaya ama si oo ii sheeg oo qof kale haddana waxba u sheegayo waa iska tanaasulayo ama wixii faraha ka qaadaan soo hadalkayga muhiimadiisu waxay tahay waxa loo baahan yahay marka wax bilaabaysid number 1 horta waa inaad go'aan qaadataa go'aan dhab ah waa inaad qaadataa number 2 wixii inaad ka meel gaartaa oo ka mira dhalisaa waa inaad ku dadaashaa of course wax walba hawl walba la qabana caqabadeeda leedahay caqabadu way ku soo wajahayaan waa la kulmaysaa laakiin maaha inaad on the way halfway wixii adigoonan meeshii aad loogu talagalay ama loo baahnaa gaarsiin inaad faraha ka qaado maaha so commitmentiga anaga Soomaali hadaan nagu yaryahay waxa loo baahan yahay commitmentiga anaga inaan xoojino wax walba oo sameynaysa ama waxbarasho ha noqoto ama go'aan kale oo noloshaada ha noqoto waa inaad ka mira dhalisaa gabar ay wiilow waxa waaye commitmentiga Soomaali bulsho Soomaaliyeed waa nagu yaryahay ma sameeyno you have to be committed